ومالينما هذا سيدي لباتنك أغسطس سنة لبدا كوني لحي طبانكا كنا صندوا هذا برنامج كيني كفتنك إسبورتس كقلبتنا برنامج كواحاسي ودجرة إذا كنت هاديين يا لول شالو يعني قو عبد القادر بوصة كبقى شوان وكلن كدلنت ما أنت هاسكرين ديغ كربيوسن كغردين كلمدهين قسلك كلالقا صحو أرك برنامج كفتنك إسبورتس كوا برنامج أحلا وحصوق لا تضوض في نمو ساعة جيس كأفريقيا milkiilayaasha Soomaaliland ayaa dalab 100 milyan dul dhigay diyashaha kooxda musalliftay ee Qaatumo Cali Khaliif Galeer dalabka lama diidaanka ayaana laga dulqaaday kooxda Puntland kuwaas oo qiimo jaban ku raacdeysanayay waayeelkan door bidaya inuu haatan ka ciyaaro horyaalka riyada ee aan dhibcihiisa la xisaabin naadigan heerka labaad u laabtay sanado ka hor ee Qaatumo ayaa sidoo kale ogolaatay inay wareejiyaan tiro xidigo oo ay u dheer tahay agab sports oo wargeyska Garowe Online ayaana aaminsan in heshiiskan uu dab ku sii shidi doono kulamada Derby Sool laba cisho ka hor gigida Banaadir Beach ayaa martigelisay tartan ka tirsan Olombikada caalamiga kooxda shabaab ayaana wajahay naadiga taagta daran ee qurba joogta oo mininkooda loogu martiyay kuwaas oo waayay dhowr xidig oo $300 ugu soo dalxiis tagay dalka horaantii isbuucan ayana ahayd markii naadigan aan macalinkooda la arag shabaab tartanka Olombikada qaybtiisa bootinta ay ka adkaadeen kooxda Puntland ciyaar ka dhacday masrax gaalkacyo walow kooxda macalin gaas dhankeeda bilado badan ku hanteen qaybta orodada 400 mitir ee galgala Somaliland ayaa dhowr kulan ganaaxay laacibin ka tirsan xidigaha geeska kuwaas oo qalaaso ka sameeyay kulan ay nasteexeen iyo DJ Zubair ku lahaayeen gigida Hargeysa laacibinta Cabdi Hani Yurub Geeyo iyo Cabdiraxmaan Oday ayaa si bareer ah isu hortaagay kulankan iyagoona adeegsaday wasiirka oo qaaftay diinta kaas oo showgii uu isaga doonayo aan dambi ka ahayn dhankiisa xiriirka ayaa sidoo kale u mahad celiyay xidigaha Nimcaan Hilaac Axmed Wali Furle Ciro Xamdi Kuwiin Asmaloof iyo Ifraax Hargeysa kuwaas oo taageero weyn u muujiyay martida ilaa iyo Garowe bila sabab la ciirsanayay xidiga Cabdi Hani ayaa muteestay ganaaxa ugu dheer isagoona ahaa shaqsigii hogaaminaya askartii hubka la soo gashay cawskii lagu ciyaarayay Twitterka Soomaalida ayaa lagu jeexjeexay xidiga Dayaxdan Nuurshe markii uu bartiisa Facebook soo dhigay sawir u muuqday mid kaalmo looga qaadan karay UNICEF xidigan heesta goolalinta xamar ayaana sawirkan ula jeeday mid uu ku muujinayo quruxda jirkiisa walow taageerayaashiisa u fasirteen sawir xidigan ku doonayay inuu la tago safaaradda Australia maadaama waqtigaasi uu ku sugnaa Malaysia qamar harawo ayaa ku soo laabatay tababarka caadiga ee kooxda xilli muddo 8 sano ah lagu qasbay in kaligeed la meeteso xidigtan da'da ayaana isticmaashay maadada jirka kubcisa ee kokeenta kulan ay la ciyaaraysay Turkiga taas oo ay ku muteysatay in qoraxda aysan arkin muddo aad u fog jarada sportiska ayaana maad ka sameeyay xidigtan mar la weydiiyay cid ay salaamayso iyadoo aan soo hadal qaadin xidigu ay ka mid yihiin BK Nimcaan Axmed Rasta iyo kuwa kale maadaama laacibintan soo shacbixeen waqtigii xidigtan ku aalamiiteynayay dhulka hoostiisa xidiga Habi Khaliif ayaa wajahaya fadeexooyin hor leh markii xagaagan uu sameeyay duulimaad ka badan kan dama jadiid xidigan nagu kala wad qosol mooda ayaana sameeyay dhowr falaay maalmo gudahood taas oo qobarada sportiska durba garteen inuu isticmaalayo dakhligii ka soo xarooday tartankii walalaha afuri ee soo idlaaday bishii barakeysneed ee Ramadaanka tigidhada xilliga samarka oo aad qaali u ah ayaana toos ku shiishadaysa xidigan sadaqada ku raaxaysanaya xilliyada kuleelaha booliska Germany ayaa xabsi u taxaabay xidigta heerka caalamiga Hodan Cabdiraxmaan taasoo baasaboor travel ku doonaysay inay ku gasho Sweden laacibadan jooga dheer ee fashil kala soo tagtay Kenya ayaana isticmaashay baasaboor aad u shabaha wajigeeda taasoo ay ku muteysan karto xabsi aan cadadkiisa la aqoon xidigtii hore ee Alta ayaana jeclaysan doonin baahinta maqaalkan maadaama ay aaminsan tahay in shidaal u noqon doono dhigeeda ka yare taasoo goos dambeedka ka qosli doonto haddii ay hesho farintan
xidiga reer Holland Isbitaal ayaa isbuucan la guddoonsiiyay bilada Maarta ee faanka abaalmarin ka dhacday jikadiisa loo keesiyay stuudiyaha duqan orodka beenta ee fakataxda ka dheereeya Mo Faarax ayaa fashil xoogan kala kulmay dhowr qof oo ku fahmay in qoraalka bartiisa uu ku sameeyay edit walow dadka ku cusub Facebook ay durba iska aamineen jariirad ka soo baxda Poland ayaa ku doodaysa in haddii Mr. Isbitaal uu ku guuleysto bilad kale oo maar ah ay ina dhankooda soo gudbin doonaan dhowr xidig oo dhimir kala silsilada kaga xiran tahay lugta kuwaas oo sii saadaaliyay dhacdooyinkii ka dhacay Belgium, Germany iyo Faransa bilihiina soo dhaafay. xidigii hore ee BBC-da Ayaale Xuseen Cabdi ayaa ku dhow inuu qandaraas hal sano ah ugu wareego midkood naadiyada kulmiye ama goobjoog laacibka reer Maxaas ayaana ku fashilmay inuu boos joogto ah ka helo shaxda macallinkii hore ee BBC-da Yuusuf Garaad kaas oo inta badan ku mashquulsanaa soo saarista jooyarta akademiyada Gurceel kulmiye radio ayaana ku qasbaysan laacibkan inuu dhimo mushaarkiisa qaaliga walow ay aragan ku qasbanaan doono amarkaas maadaama uusan haysan xulasho kale oo uu ku soo muuqan karo maanta. markana u diyaar garooba xubintani baafinta gudbinta barnaamijkan waxaa gacan weyn ka geystay dukaanka Bilaal Kooba ee xaafadda Boos Haga magaalada Helsinki ee dalka Finland. waxaa la baafinayaa xidiga caanka ee Qoomaal markii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in isaga iyo Maryan Mursal yihiin Shaaruqan iyo Kajal haddaba cid allaali cidii aragtay xidigaasi haatan dukaanka ka furtay xamar waxaa laga codsanayaa inay ku soo hagaajiyaan xarunteena bisha cas haddii uu iskala weyn yahana waxaad albaabka aqalkiisa ku wari kartaa dirac shabaha kan Maryan Mursal inaga dhaqdhaqaaqiisa sheeda karo kala socon doonee. baafinayaa gudoomiyaha jaaliyada Finland Yaasiin Cabdiraage barkii cid ugu wardambeysana wuxuu aaminsanaa in turjubaannimo iyo maqaaxisan buus oo sheer lagu darsado yihiin darajada ugu sareysa ee Yurub laga gaaro haddaba cid alaaliye cidii aragtay xidigaas aan jecleen horumarka cadaadada iyo dhuusamareeb waxaa laga codsanayaa inay ka dhaadhiciyaan joojinta xifaaltanka ama waxaa tusi kartaa sawir riyo kuna dheh waa cadaado isaga xanaaq dartiis berito shaqada uga joogi doonee. ayaanu ku soo gabagabeynayna barnaamijkeeni kaftanka sportska waxaana si wada jir idinkugu daadihinaya Cabdiqaadir Boos iyo waliba anigoo Luul Shaalu ah halku dhiga barnaamijkeenuna waa lagu xasuusta ayaa ka horeysa intan dib dambe barnaamij ceenkan oo kala ka kulmeeno waanigiyo Boos oo idin leh gaashaankiin noloma keeno gabagabada heesta barnaamijkuna waa sama badan suleeqay suradada quruxdiyo yani idin hordhicin waa codkii dahabiga Baato Xuseen xidigaha Sweden dooqi wada jirka Xasan Cali Soobaari waliba Naftaxiin Cabdalla from Muqdisho daawasho wacan sama badan suleeqay suradada quruxdiyo inanta waaxee sangaroorka soo godan saajireeda ku dayay sifaaga inan yahay waxaan ku soo injigoba u dhalaatee saaxil loo barbaarishay kadab lagu suntay